بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وناكسن داوديال كسو دوادا مركله iyo dhabka hadal qaybtan waxaan kaga hadli doonaa hadii rabbi qadar dhanka tikreega ayaan aadi doonaa saad la socoteen baa ma horay in badan aanu idinku tabinay iskuma fiicna xukuumadda dhexe ee dawladda Ethiopia iyo waliba maamulka dawlad deegaanka tikreegu intii uu yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ee uu la wareegay xukunka wadankaasi iskuma ayna fiicnayn tikreega iyo dawladda dhexe xaaladdu waxa ay sii xumaatay markii laga takhalusay xisbigii horay uga arrimin jiray Ethiopia muddo dhowr iyo 20 sano ee EPRDF oo ay ku mideysnaayeen afar urur oo kamida afar urur oo aan idhaahdo ka soo kala jeeda afar qowmiyadood oo kamida qowmiyadaha wadankaasi ama ismaamullada sagaalka ee wadankaasi kamid aha xisbigaasi EPRDF marka laga takhalusay Abiy Ahmed waxa uu sameeyay xisbi kale oo uu gogol dhig uga dhigay boogii uu qoray ee Madamar isla markaasina loo bixiyay Prosperity Party ama BB loo soo gaabiyo xisbigaasi BB waxa ku biiray xisbiye kala duwan oo aan hadda ka hor kamid ahayn xisbigii EPRDF waxa kamid ah Soomaalida ama xisbigii ka arrimin jiray dawlad deegaanka Soomaalida oo ka hore EPRDF baa wadaag laha laakiin kan dambe si rasmi ah uga mid noqday haddaba markii la bedelay EPRDF oo ay dabcan saldhig u ahaayeen qowmiyadda Tigreega xisbigeeda ka arrimiya xurriyadda Tigreegana u soo dagaalamay ee TPLF waxa xaaladdu ay cirka isku shareertay in maaragtay Abiy Ahmed uu ka tallaabsaday dastuurkii wadankaasi waa sida ay sheegeen Tigreegu sidoo kale waxa haddana xaaladdu ay sii murugtay markii la yiri doorashada dib loo dhigayaa sababo la xiriira caabuqa COVID-19 ee adduunka saameynta badan ku yeeshay arrimahaasi oo dhan ayaa iyada oo ay taagan yihiin Tigreegu waxay ku dhawaaqeen in doorasho ay qabsan doonaan haddii xaaladdu sidan sii ahaato waxa kale oo jirtay toddobaadkan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u duulay wadanka Eritrea halkaasina uu ku tagay socdaal aan la sii shaacinin oo kadis ah arrimahaasi ayaan eegi doonaa madaxweynaha haddaba dawlad deegaanka Tigreega ninka lagu magacaabo Debretsion Gebremichael waxa uu sheegay hadal cajiib ah jaamacu soo dhow Debretsion muxuu sheegay yahu Debretsion waaragta shalay qayla dhaan buu dirsaday shacabka Tigreega iyo shalay qayla dhaan u diray hadalkiisa ama qayla dhaantiisaasi waxay jawaab u ahayd socdaalkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku tagay dalka Eritrea iyo sidoo kale taliyaha ciidanka Eritrea oo isaguna socdaal ku tagay dalka Suudaan waxa uu soo baxday marka dhagarta loo maleegahay nimankan Tigreega ana intelligence ahaan ama sirdoon ahaan way aad bay u sareeyaan way horeeyaan oo waxaan dhihi karaaba yani intelligence-ga marka la yiraahdo dawladaha bariga Afrika maamulka Tigreega ya ugu horeeyay oo xitaa kaga horeeyay dawladda Ethiopia ee ay ka tirsan yihiin iyagu marka xogaha iyo macluumaadka ay hayaan iyo qorshayaasha kala duwan ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed yaa waxay u muujisay xaqiiqda dhabta ah iyo waliba inkastoo wax hadda ku kala qarsoon oo la jirin Ethiopia iyo Tigreega oo ay xog og yihiin oo telefoonada mar walba la iskala socdo oo wax walba la iskala socdo oo haddana dawladdan ay ku jiraan oo baarlamaanka ay ku jiraan oo qayb ka yihiin xukuumadda haddana xogagkii xasaasiga ahaa ee qarsoona ama la rabay inay qarsoonaadaan iyo la socdaan marka isaga oo ka jawaabaya socdaalkaasi ayuu shalayta wuxuu la hadlay shacabka Tigreega gaar ahaan shacabka gudaha ku dhaqan wuxuu sheegay ama shacabka uu u sheegay in maanta ay ka maamul ahaan Tigreegu kooxdoodan hadda talada haysa ay dadaal xoog loogu jiraan horumarinta iyo fulinta mashaariic wax ku oola oo dalka iyo dadka wax u taraysa inay ku hawlanaayeen la dagaalanka wax kaste oo maaragtay caqabad ku ah dawlad wanaaga inay isu diyaarinayeen qabashada doorasho xor iyo xalaal ah iyaga oo marka dadaalkaasi dastuuriga ah ee loogu talagalay dawladdu inay dadkeeda u qabato ku guda jira fulintiisii in haddana dawladdii federaalka ahayd ee Ethiopia ay diyaarinayso weerar ay ku soo qaado iyaga oo ay ku dacwareemayso wuxuu kale oo shacabka Tigreega u sheegay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashadii dastuuriga ahayd iyada oo waliba xilligeedii lagu qabanayo dawladda federaalka iyada oo taa ka hor imaanaysa ay isku dayayso in ay carqaladayso oo doorasho aysan ka dhicin deegaanka Tigreega taasi oo sida uu sheegay xadgudub ku noqonaysa dastuurka dalka Ethiopia iyo kan deegaanka Tigreegaba
sidaa daraaddeed muhiimaddu inay tahay ilaalinta dastuurka waxa koobaad ee heshiiska lagu yahay lagu wada joogo ummadina ay maxaanku idhahdaa ku kala nabadgeli kartaahay waa dastuurka. sababtoo ah buu yidhi haddii doorashada waktigeedii aan lagu qaban iyadoo la qaban karo waxay noqonayaan maamulkan sharci darro, joogistoodana waxaa ka dhalan kara dhibaato, burbur, dowlad la-aan iyo in dhiig badani daato. sidaa daraaddeed waxaan diyaar u nahay markii xilligii la gaaro talada dadkii lahaa intaan ku celino inaan anaguna haddii ay noo ogolaanayaan iyo haddii kaleba aan qayb ka noqono tartanka. sidaas daraaddeed waxa la diidayo waa wanaaggaas iyo shaqadaas aan qabanayno. arrintaas waxaa dheer buu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed iyo dowladda eritrea suudaan wuu ka gaabsaday. haa iyo dowladda eritrea waxay wada qorsheeyeen oo asmare lagu diyaariyey weerar ka dhan ah maamulka tigreega iyo haa qoomiyadda tigreega. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa buu shacabka tigreega wax kastoo dhan inay dhigaan haa difaaca dalkooda iyo dadkooda inay u istaagaan. wuxuuna wacad ku maray in cid kasta oo isku dayda in ay muquunisa tigreega amaba soo gardaraysatay inay afka ciidda u dari doonaan. waa ballan ilaahay buu yihi taas anu maaqaan wuxuu isku hadlaynayo noloshiisa wuxuu isku hadlaynayo. ballan waxaa a buu yidhi in aan afka ciidda u dari doonno buu yidhi cid kasta oo weerar daandaansi ah. waan ognahay buu yihi weerarada daandaansiga ah ee nagu socda in aan marka ay soo qaadaan aan afka ciidda u dari doono, dib dambena aan loo maqli doonin. war may garatay muhiimadda marka hadalkiisii uu shacabka tigreega uu faray taasay ahayd. waxaa marka meesha taalla shacabka tigreega iyaga naftirkooda, shacabka tigreega meesha maamulka uu joogo meel ka fog bay joogaan. sababta tigree waa la colaadiyey. tigree dembigii iyo dunuubtii iyo wax allaale iyo wixii t b l f ay geysatay yaa dusha loo saaray. waa shacabkii caadiga ahaa. hadda meeshan jigjiga maalin dhaweyta soomalian maqlaynin dad baa lagu xidhxidhay soomalian maqlaynin intooda badan ama dhammaantood waa tigree iyo aduu saan umalaynaya koox haa iyo canaasir t l f baa layidhi. waxaa weeyaan colaadaasaa loo hayaa. haddooba waxaa laga yaabaa inay yihiin dad shacabaho caadiho iska jooga. tigreegu maamulkoodu wuu dhib badnaa, maamul arxan daran oo cadow ah oo si maaragtay xayawaannimo ah dadka ula dhaqmay ahaayeen. laakiin waxay kaga roonaayeen kuwayawan kale waxaan iyagu la ahayn kursi iyo lacag mayna rabinba. haa laakiin gurigan anaa le iyo meeshan anaa le iyo meeshaadaan kursi ka rabaa. kursiga ay rabaan ma ahan kan qoomiyadahan iyo meelahan kale maaha. nin tigree ahoo ka shaqeynaya gobolka maanku dhahaato oromada ma jirin, kan soomaalida ma jirin. hadduu u batana qandaraas lu ahaa ama taliye ciidan oo la keenay buu ahaa. laakiin maamulka kumayna dhex jirin. kuwan hadda waxaa weeyaan sida la qorsheynayo dee maamulkii hadda marka la fiiriyo hal qoomiyad baa la wareegtay, qoomiyaddaa la wareegtay ee axmaaradana qorshaheeda wuu cad yahay oo waa la og yahay. soomali garan halisaha badan ee marka u muuqdaa waxay tahay in duulaan ay qoomiyadda axmaaradu dabada ka riixayso lagu soo qaado deegaanka tigraay. deegaamay isku haystaan 3 degmo ah tigreega iyo axmaaradu, walqeyta iyo raaya ay ka mid yihiin. ma baarima waa eritrea axmaarada haa axmaaradu marka waxayba qorsheynayaanba fiiri soo lama dhihin hadda maalin dhaweyto waxaa heshiis kala saxiixday guddi la yidhahdo guddiga walba runta iyo dib heshiisiinta miyaa lahaa wax noocaasa iyo house of federationka waxa la yidhaahdo adu guddi ka mid a guddiyada adu dhinaca dholalka la isku haysto anu waxa la dhahaa ma aqaane si yar sanifahan u maqlahay iyo qoladin house of federationka la yidhahdo heshiis kala saxiixday waxay ku heshiiyeen maxaan ku idhahdaa to dacwad ay wataan nimankan la yidhaahdo axmaarada in la aqbalo. raaya iyo walqeyta hadda waxay ka tirsan yihiin deegaanka tigray bay ka tirsan yihiin. marka raayada iyo walqeytigu ma dhulka dhulbeereedkaaba haa waa meelihii axmaarada laga soo eriyey. waa qoomiyado kale wey ma aha axmaaro laakiin qoomiyadaha degan baa waxay yihiin qoomiyadihii la axmaareeyey. labada qolo midkoodna kama tirsana walqeytaagu waa qoomiyad gooniya weeyaan laakiin waa qoomiyadihii la axmaareeyey bay ka mid yihiin. okay waxaa hadda loo ogolaaday oo qorshuhu yahay in loo ogolaado
in walqayta iyo maxaan ku idhaahdaa to meesha la yidhahda raaya iyo degmada kale saddexdaas deegaan doorasho in ay isu sharaxaan axmaaradu axmaara kasoo gasho haa waa daandaansi hor dhe mogta tigreegana way iska sharaxayaan ogow oo doorashay ka qabanayaan hadhow markii doorashada Ethiopia xilligeedii la gaarana in hadda baarlamaanka federaalka House of Federationku uu ansixiyo maadaama isagu uu arrimaha kililada qaabilsan yahay guddigii xuduudaha iyo maxaan ku idhaahdaa to muranka dhulka iyo federationkuna ay heshiis galeen dacwadii axmaarada waa la qabtay saan waaba la qabtayba mar haddii la qabtay waxa weeyaan go ahead bay haystaan sababtoo ah qalinkii iyo qorigiiba iyagaa isu haya maanta axmaaradu cid kaloo wax haysaba ma jirto ordaha ka soo gala baa la dhihi hadhowna ciidanka militariga meesha la geeyay ciidanka militariga markii meesha la geeyayna xabadii qofkii tigreega lagu arko wajiga lagu dhuftaa la dhihi tigreegu wayba ka sii gaashaanteen oo difaac dhow waxay ka qoteen godad waaweyn bay ka qoteen oo taangiye ku xareysteen marka militarigi la geyn lahaa soo inuu horta taangiyada jiira ma aha marka halkaas dhibaatada waxa weeye shirqooladan iyo waxan oo dhan iyo dhibaatooyinka socota iyo abaabulka dagaal ee hadda ka dhanka kooxda TPLF ma aha mid uu wado ninka la yiraahdo Abiy Ahmed waa mid axmaara wado Tigreena ay ku raacsan tahay waxaan jeedaa Eritrea ay ku raacsan tahay ha Eritrea markii ay lahaayeen heshiiskii aan la galay Ethiopia waa laga baxay cadaadis bay saarayeen cadaadiskiina wuu dareemay oo dirba waa ka orad ugu tagay waa kii taliyihii ciidanka Eritrea loo diray halka iyo Suudaan oo waxa la rabaa in la yiraahdo Suudaan ay nasiyo dhul aan ka soo galno gobolka Tigreega aan ciidamo ka soo galino Suudaan Eritreankuna ciidankooda uu soo ruqaansado oo la yiraahdo Shiraare iyo Badme iyo meelihii aan idin siiyay idinkuna ku habsada xaqna ay laga soo bilaabo xaqna kadibna meel walba in laga soo galo qorshahaas wuu cad yahay waa qorshe istaraatiijiyad military oo la dejiyay wuuna ka shanqariyo weerarkan ugu soo socday buu yiri ballan waxa inaan afka ciida u darno ama dhagaxa ku ma baadhay karaan laakiin waa mid farayar marihii bata kama macaashan baa nimankan waa la yaqaanaa waxa yihiin dad baa waxay dhihi waxaad u helisaan bay dhihi jirtaan maxaan ku idhaahdaa Tigreey waxay rabaan hadda xaqiiqda markii mugida dadku ma rabaan nimankii iyaga iyo EPLF ciidankii 1 milyan iyo 500 ee kun ka badnaa ee Ethiopiaanka ahaa afka ciida u dareebay ahaayeen waa in yar laakiin in yar oo isku kalsoon oo diyaar u ah dalkooda iyo dadku horta ninku hadduu diyaar u yahay inuu dhinto cidina kaba adkaan karto balaa waa sida Soomaalida oo kale raba inay noolaadaan haddana dal xor ay ku noolaadaan bay rabaan haddana inay xorriyad ku noolaadaan iyo wax walba oo nimcadu isu dul saaraato oo ina shaqaysanin bay rabaan war dalka hal la xoreeyo ku dhihi kan kula dalka hal la xoreeyana ma rabo isaga iyo wiilkiisa iyo xitaa qof u yaqaan toona inuu ku dhinto ma rabo wuxuu rabaa soo joodanayo ku jiifa in malakumad ugu yimaado halka uu ku dhinto oo xabad ay ka cabsanayaan laakiin nimankan gaagaabtu waxa weeye waa niman diyaar u ah inay dhintaan xaqiiqda meesha ay waxa ay wajihi doonaan way og yihiin aadamaha oo dhan baa col u ah Suudaan baa col u ah Eritrea col u ah Axmaara col u ah Soomaali baa col u ah Oromo col u ah Benishangul iyo Shanqilla iyo balaayadan kale ee meelaha joogto oo dhan baa col u ah waxa weeyaan xaaladoodu waa ilaahu waxaad naga dhigtaa maxay ahayd ilaahu ma xabadii masigada ahayd ee kaliya mooye dhexdood ku baraday naga dhigo camal Soomaaliya garan laakiin waxay diyaar u yihiin deegaankooda iyo dawladnimadooda inay difaacdaan kulley haddii weerar lagu qaadanay Ethiopia kama dambeynayso taasi waa confirm haddii weerar lagu qaado oo weerarkaas inta lagu qaado saacada lagu soo afjari waayo safarka xaqiiqdu hayaa marka shacabkii Tigreega oo awal hore Ethiopia inteedii kale laga soo jafay yaa haddana wuxuu siiyay briefing ama ba xaqiiq ah in duulaan xoog lih uu ku soo socdo Eritrea marka ma ka soo ragashaan Tigreega la dagaalamay maxaa dhacay dal baa ka maqan dhul baa ka maqan oo markay dhulkeeda qaadato si sharci ah horta wuxuu waa siyaasaduna way wajiye badan tahay laakiin shacabaan markii la yiraahdo way isaga dhow yihiin Soomaaliya Ethiopian kale waa isku mid Eritrea Tigreega wax farqi u dhaxeeya male waa wili abiga midna xagga xad baa dhex mara uun waa Hargeysa Muqdisho ma aha way isaga dhow waa burciya Hargeysa fiiri wiilka jooga maxaan ku idhaahdaa gaashaamo wiilka jooga
Soomaaliya garan iyo wiilka burca jooga maxaa u dhaxeeya xuduud beenaad baa u dhaxeeya Soomaa ay gaala marsatay laakiin waxa weeye sonkorta wuxuu ka doontaa meesha la yiraahdo markuu ka doonto meesha la yiraahdo gaashaamo burcu ka soo qaataa gaashaamana wuu degan yahay burcana wuu degan yahay labada xaas midna halkaas uu degan tahay ninka midna halkaa iyaguna waa sidoo kale waxba kama duwana midda laakiin qoomiyada fara badan baa ku nool waxaan ka hadlaynaa waa mid kamid ah qoomiyadaha ama qoomiyada Tigreega la yiraahdo laakiin meesha waxa ku nool Carab baa ku nool waxa ku nool Canfar baa ku nool labada meeloodba waxa kale oo ku nool dad kala ku nool oo tiro badan oo qaar maxaan ku yiraahdaa Jabartiini yiraahdo ha labada dhanba Tigreega ugu xoog badan marka calaayati xal muhiimada waxay tahay hadii siyaasaddu isbedesho haddii isbedesho labada kooxood EPLF iyo TPLF yaa ka kala taliya horta Asmari iyo Maqale waa labadii kooxood isla soo jabhaday u soo wada halgamay way is yaqaanaan way isxiniya taabteen marka mid waliba wuxuu rabaa mid kale inuu kaga takhaluso oo siyaasad cadaawad ku dhigaysan baa u dhaxaysa mooyaane shacab ahaan iyo bulsho ahaan shacab ahaan iyo bulsho ahaan wax dhibaho dhex yaal ma jire waa siyaasad waxa isku hayaan mid walba mid kale rabtaa inay cunaha qabato oo ay iyadu hogaamiso laakiin waxa xaqiiqa hadii siyaasaddu ay qaab daraato inta shacabku isu guuro in labadoodaba meesha laga saari kadibna ay midoobi oo laga yaabo in Eritrea iyo Tigray ay isku mid noqdaan marka dhibka ugu badan ee meesha yaalla waa uu siyaasad iyo nacaybka u dhaxeeya labada kooxood TPLF iyo EPLF labada kooxood baa isnacay sababtoo TPLF iyadoo adeegsanaysa awood siyaasi inuu la safto abi marka TPLF iyadoo adeegsanaysa awoodii Ethiopia oo dhan soo tii ku habsatay ma aha asmara garoonka asmara dhulka la dhigay 80 kilomitir baa asmara loo jirsaday meesha la yiraahdo musawacna waxa loo jirsaday ma aqaan 5 kilomitir wax ka yar baa loo jirsaday soo aan garan dhibaatadii marka xanuunkii loo geystay bay og yihiinoo weligood ma aaminayaan TPLF nimankan EPLF inay labadooda markay meesha ka baxaan siyaasiyiin caafimaad qaba iyo axzaab siyaasadeed oo dimuqraadiyad ku dhisan oo caafimaad qaba oo bulshada isu soo jiiday inay yimaadaan mooyaane inta labadan kooxood joogan ugu dambeyn Tigre ma waxay aaminsan yihiin abi hadii isu dhiibaan in ay Tigre ma dhiibayaan hadii ay is dhiibaan dib dambe loo maqli maayo loona arki maayo qof kasta oo maalin TPLF noqdo horta maxkamad baa la geyn hadaan la dilinba gumaad iyo xasuuq arxan darra oo sidii Rwanda ka daranna waa lagu sameeyo qof dambe oo Tigre ah oo nool ma rabto Axmaara in la arko nimankan cid kale oo u caraysan ma jirtaba waa Axmaara haday fursad hesho qof nool oo socda oo neefsanayo Tigre lama arkayo hawada ka qaranayaan ayaguna waxay og yihiin waa waxaas cid asxaab Soomaaliyeed ma jirto laakiin waa loo kala daran yahay aad baad mahadsantahay jaamaco way daawadayaal halkaan ku joojina barnaamijkaasi kooban aan kaga hadlaynay Tigreega iyo waliba hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dawlad deegaanka Tigreega Debretsion Gebremichael ee ku saabsanaa safarkii u dhawaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ku tagay wadanka Eritrea ee uu kula kulmay madaxweynaha wadankaasi Isaias Afwerki inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Nuur iyo jaamaco idin kaga tagaya nabadgelyo